gabadhu markay caruurtaadan kadeedka badan ee dhibka badan ee maanta oo dhan mid xaar laga dhaqayo mid kaadi laga dhaqayo mid maryaha loo dhaqayo mid loo habaynayo mid la ciyaarsiinayo mid la nuujinayo ay ku hayso ku habaynayso ee cid ilaahay abuurto oo hayn karta aysan jirin gabadhu markay caruurtan ay ku hayso ku habaynayso habeen iyo maalin aadan cidna lacag ku siin waad mahadsan tahay ma ku tiri weliga caruur ah ما إرادة ورياه بل كان أنا جيني هو أن عوامات سوي دي سنة أنا جد دار نور راعيدن كبل إيه بوانجرت ده إن هذا رجع لي وركبوا مركي كور راح يسو وما هتصل تاني كتر هذا راحة ده راحة ده إن هذا رسو يبصو مرة ما إرادة دي هي هاي إيه كبرنا أتكفي ليسو inay wax kasto aad siiso ama aad tarto aad ka filayso inay waa mahadsan tahay ku tiraahdo ogow inta adigu aad tarto mar kasta waxa ka badan inta iyadu ku tarto iyada hadaad waa mahadsan tahay ku tiraahdo koob shaaha markay ku soo dhigto waa mahadsan tahay ku tiraahdo koobka sharaabka ay dhac marka waa mahadsan tahay ku tiraahdo iyadoo isku ka qurxisayo labisan waad mahadsan tahay ku tiraahdo deeyana waa mahadsan tahay ku oran qoron laakiin adigoon weligaa waa mahadsan tahay oran xagee ka filin gabar inay ku tiraado adigu waa mahadsan tahay ku tiraado yadani aqligaaga wa shaqeynay wali kaalay dirag saaxiibaa waan waxaan soo xagga aqliga xoogaa da'dan iska leegday soo xagga aqliga xoogaa waad hooseysaa aan maraynde aan kula yara kaftame waanga marka inaadeen hadalka ii soo koobo ma waxaad leedahay iyadii u mahad celi baad leedahay mid baan kuu sheegayaa gabadhu arrimaha ay adigu dibadda ka soo shaqeeyo maanta oo dhan soo xamaal shaqada guriga iyo inta iyadu qabanayso baa mar walba taada ka weyn waradama ay garatay waxa la yiraahdaa gabadhu waxa kale marka iska daysidba waxa la yiraahdaa gabadhu baa la yiri